السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتين بقى سود وهذا ملك السود دونك كجوكتان صاحب هذا غالية أن وربا صوت عفي وربا صوت عفي لكن ورركي يابك إيو يا أما كاجا بدنا ويا حلا يعيد لما سيحنن ninkii macallinka asaha adduunkii dhan waa qas horta live ka la share gareeyaa la soo bato si bal aan xog yar oo faahfaahsan aan idin la wadaago oo arrintaas hadda maartay ilaa xalay tole media iyo warbaahinta dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo arrimahaasay xalay dhan aad looga hadlayay nin fanaan ahaa oo fanaaniinta kamid ahaa oo anigu aqaanay muddo ka badan 2014 ka soo xisaabi oo bilowga 2014 ka soo xisaabi ilaa iyo hadeertan oo sanadku uu yahay 2020 waa kulli waa ugu yaraan hadda ugu yartay waa 5 sano xisaabi idinku xisaabiya isku darsada xisaabta bal hal la share gareeyo arrintaas aan rabaa fanaankaas isu bedelay nimanka maartay Arsenal oo dhalinyarada anigu kulay ma garanaysaa dhaxdhaxad baan ahay laakiin wax walba ah ilaa shirtiisa aan shakhsiyaanteedu ay muutii aad baan u garanay waxaan isbaranay 2014 abshir gaarane Axmed baa la yiraahdaa waliba aad baan u aqaanaa nin dhalinyaro oo buu ahaa oo runtii wararkan iyo waxaan hadda la sheegayo aad uma xaqiijin kara laakiin hadday waxaas run noqdaan waxaan kuu sheegay inaan hooyaday meel la fadhiisanin oo ilaahay ugu meel lama fadhiisanayo bal harta hal share gareeyo live ka la share gareeyo hal soo bato warba ay karkarinaya magaaladii xamar ahaydna waan dhex socdaa oo gaari baan wataa oo wataas wada jeedaan marka bal hal share gareeyo marka live ka la share gareeyo markii kun dadku gaaraan markaas aan rabaa inaan toos u guda galo oo maxaan ka aqaanaa anigu ninkaas dhalinyarada oo barnaamijkaas hadda lagu sheegayo aad ma raba inaan ugu sii fogaado anigii laftarkaygiiba ma garanaysaa moogtahay aniga laftarkaygiiba difaac ku jiro moogtahay aad ugu ma dheeraanayo moogtahay ilaa meesha ilaa waa la soo galayo sheekada markan Khadiija diiriyo ma moogtahay sheekadu hadda way ka duwan tahay sheekadu waxa weeyaan ma garanaysaa waa samada iyo dhulka meelo badan bay ma garanaysaa marka aad ugu fogaanayo laakiin wiilkaas fanaanka oo fanaan bismillah anigu waa la soo dahay anigu barnaamijkan mu soo dahay fanaaniin badan oo caan ah baa kaarar badan wata anigu waan ogahay fanaaniin badan baa kaarar badan wata ma garata fanaaniin badan baa kaarar badan u hooqan yihiin laakiin anigu ma sheegayo ma dhaha baddaas ma galayo filmaantaas waad ogtihiin sababtaana aad ugu dheeraanayo ninka waad ogtihiin life ko go'aamiya
لايف كويا قاي رالي هذا لايف كويا قاي إله لايف كويا قاي ويا قاي لكن منك وين هجاجيه وهذا وين هجاجيه بل هذا صار لابته أو محل ده هي لايف كويا هاللابه إنترنت كا ما أرتي كا حماضي لكن هذا وين هجاجي منك وين هجاجيه waan hagaajiyay haddaba marka cabdi dhaanta marka muxuu og yahay arrintan cabdi dhaanta muxuu kala socdaa cabdi dhaanta wuxuu kala socdaa barnaamijkan waa soo dahyay barnaamijkan waa soo dahayo muxuu soo dahay maxaa la dhahay filmaanta noocan oo kale aad baan u daawadaa anigu ma garat waa marka laakiin markii kaftanka laga yimaado anigu wiilkaas waan garanayay si fiican baan u aqaanaa inkastoo shaqana dhex marin laakiin islaanta uu xogayaha u ahaa oo sida hadda wararka aad meelahaad ka aragteen xogeynta waa baa aad in nacbaydo way in nacbayd waayo inta badan anigu tiim yar oo dhaantaan lahaa oo tiimka dhaantada meelaha kale oo kooxaha fanku isugu yimaadaan markaan imaado maadaama dadka dhaantada ay aad u jecel yihiin waa la challenge gareynaya taasaa waxay sababtay marka inaanan aad uga waxaan iyo muxuu waxaan marka laakiin ninkaas waxaan ku xasuustaa horta kama hor dhacayo musalsalkaan sugi doonaa musalsalka Cabdicasiis Afrika soo diyaarin doono musalsalkaasaan sugayaa oo rabaa inaan daawado kaas markaan daawado kadib musalsalkaas markaan daawado markaasaan anna waxaan sheegi doonaa laakiin fanaaniin badan oo wadaninimo ku qaraabanaya ayaa kaarar badan sitaa hobadalada waa beri hala baadho hobadalada waa beri meeshaas waxaa weeyaan hala galeen bay noqotay il gaara ha lagu fiiriyo weliba waxaan idiin sheegayaa idiin sii ballan qaadayaa tiyaatarkan hadda la dhisayo isxilqaan lagu dhisay fanaan baa isku qarxin doona hay loobina kelmaddaas anigu aad baan nafteeda u jeclahay aabbahay wuu dhintay aad baan u naf jeclahay aabbahayna wuu dhintay oo wax dambe ma dhalayo 4 wiil buu dhalay marka maadaama 4 wiil dhalay aabbahay dee 4 tannadaas waxaa weeyaan waa aad baan isku ilaalinaa marka laakiin waxaan idiin sheegayaa ciidanka amnigu fanaaniinta ha baadhaan hadalkaygaas kaftanka yeenan dhayalsanin hoballada waa beri ha la baadho far baa ku godan far baa ku godan ha la baadho anigu haddaan wax sheego moogta hadal midda kale dadkay daawan waxaan u sheegaya cabdidhaanta hadduu wax sheego cabdidhaanto hadda dawladda laftirkeedu ma rumaysanayso waxaan sheego sababta u rumaysanaysin maxaa leeyahay ninkan waa nin mucaarada waa nin maafiya wuxuu rabu iska sheegayaaye seen ku aaminaa laakiin goormay ogaanayaan markii w jugjug wacwac laakiin anigu waxaan idiin sheegayaa waan digniintii ugu dambaysa waa maxay fanaaniinta hadda ninka hadda odayga uu hordhaca u yahay oo hadda baaritaankiisa aanan ka hordhacaynin waxaa ka waaweyn kuwa kale waaweyn baa jira asagoo waxaa la yidhi mushaaraadkii waxaasu qaabilsanaabe mushaaraadkay sheegayaan maxaa war kuwan waxay qaabilsan yihiin kuwan mushaaraad ma qaabilsani waxay qaabilsan yihiin macal gabdhahay bixiyaan ma garata gabdhaha ayay bixiyaan waa wadaado cimaamaday wataan ma jirto
niman koru kaaji weeyaan koru kaaji marka waxaan dhihi lahaa fanaaniintaas hala baaro hala iska ilaaliyo anu kuma dheeraanayo waxaan ugu dheeraan waxa weeyaan madima ii laakiin anigu laangaabna waa iska moogta laan dheerihi laangaabnima bedesho ma fahamteen meelahaasna aad uguma badnin annagu ma garateen laakiin waxaan idin sheegayaa oo xaqiiqadu ay tahay in arrimo waaweyn ay soo socdaan arrimo waaweyn fanaaniinta anigu ma rabo in hadda magacyadooda inaan sheego in hebel iyo hebel iyo hebel idhaahdo ma jirin wallaahi billaahi tallaahi kun fanaan baan ognahay kun fanaan oo 5 kaar wata oo meelo badan laga soo kala diray laakiin anigu baddaas ma gelayo anigu amnina kama shaqeeyo nin shacabaanahay nafteydana waan u turayaa sidaas darteed kuma dheeraanayo marka kaftanka markaan xagga uga soo tago maxaan ka aqaanaa ninka abshir gaaran oo hadda lagu soo eedeeyay inuu al-shabaab ilaahu bal hareerahaas ka fiiri ilaahay una badbaadi suuqa bartankiisana waan taagana marka ninkaas waxaan isbaranay 2014 hal shir garay 2014 baan isbaranay waxaan isku baranay degmada Wadajir markaan isku baranay ninka maartay wax u qarsoon anigu ma garanayo koox degmada Wadajir ka dhansaneed oo fanaaniina ayuu ku jiray oo team ahayd anigana habeen anoo iska hurdaan waxaan ku riyooday inaan fanaan noqdo marka TV baan daawaday cawka Allah naxariis barnaamijku daadihinay baan ka daawaday live-ka fanaaniinta marka arkay habeenkii waxaan ku riyooday inaan fanaan noqdo subaxii baan iska soo kacay waan orday fan baan raadiyay TV-yadu inay muusigada garaacaan oo fanka qabtaan baan maleynayay TV-ga hon cable baan arkay adigu hon cable waxay ku dhahan meeshan fanaan anagu fanaaniinta maxaa dhahay banaanka ka yimaadaan waan wareysanaa adi markii dambe nin baa Wadajir iga tuuray degmada Wadajir marka aan tagay ninkan hadda kooxda oo lagu soo eedeeyay hadda baaritaan kama hor dhacay ninkaas iyo koox ka aasnay degmada Wadajir baan u imid marka kooxda way abiyusayeen oo maxaa dhahay maadaama nin aad u firfircoon aan ahaa way ii diidi jireen inaan kooxdooda aan la heeso wala ibraaweeyey inaan cod leedahay heesti xasan aadan samatar baa laygu baraaway qorraxdo aroortii qaybisay fallaadhaha ama qaansa roobaad daroor midab ku qari markii la arko codkaygii baa la yidhi ninkan naga eriya kelalka shanaad ee meeluu ka yimid eriya way soo caydhiyeen markay soo caydhiyeen su'aalahayguna way badnaan nin aad u shaki badanna waan ahaa marka sababaha la cayrinay taas ahayd nin su'aalo badan baan ahaa oo aad u dhib badan markay soo caydhiyeen ilaahay markiisa anoo wareersan 3 isbuuc 4 isbuuc ka bacdi sangub Allah naxariistay baan salay asaa caawiyay asaa garab siiyay marka meelahaygii ba fankaygi baan watay oo magaaladeedii baa ay kala cadoo nin gudoomiyaha gobolka Banaadir muxuu ahaa Mungaab iyo waxba ay kala kiciyo islaantan laftirkeeda uu yarkaan hadda la qabanayo uu xogeynta u ahaayo Mungaab ba ma artay Allah barakeeyo uu casuumay maalin global buu nagu casuumay qaduu noo sameeyay xogo yar oo lacagna uu nasiyay dan maxaa dhacay marka mar dhaxdaas ahayd ma xasuustay sanadkii hadda 19kii mar dhaxdaas ahayd baa ninkan hadda la qabtay waxaan iskaga hor imaadnay gobolka Banaadir ninkaas waxaa la shaqaaleysiiyay xitaa xilliga waan xasuustaa waxaa gobolka ku soo biiray intii gudoomiyihii taabid gudoomiyaha ka ahaa haddaan khaldanayn inuu ku horeeyay waa suurtagal laakiin anigu waagi baan arkay gobolkaan iskaga hor nimid anigoo warqad meesha ka raadsanaya warqadda gobolka Banaadir oo dhalashada waan iska hor nimid wuxuu yiri Cabdi iyo waran ma fiican tahay waa khayr baan ku uri marka ninka waxaan ku ogaa caatanimo ninkaan waxaan arkay buuran
waxaan ku uri walaalow maxaad taan ugu cayish markaasuu yidhi niyahow dee iskaabulanimadii baan ka baxay adigu meel cidlaad degan tahay dad lama degtid nin waalan baa tahay wuu igu yidhi ma saas ahaa nambarkaaga ii qor buu igu yidhi nambarkiisaan u qoray nambarkaygaan u qoray inuu soo wacay in kan anu hadda ma garanayo nambarkayga waan u qoray habeen buu soo wacay haa habeenkii taleefonkayga dib baan u baadhaya wuxuu yidhi annaga marka mana aanaa isaqoonin sida dhallinyarada iyo dad badanoo xamar joogo iyo yaqaana dabeecadahayga ay ku yaqaanaan waxaan iska haynin inta badan quyar socodoo aan aad dadka weli especially fanaaniinta aan aad u dhexgelin barayfasigooda iyo waxyaabahooda ninkii odayga habeen buu soo wuxuu yidhi xaggee joogtaa markaasaan ku yidhi waxaan joogaa baydhabaan joogaa maxaad ka doontay waxaan ku yidhi hooyaday baa madaxa laga hayayo waxaan u doonay geedihii dadka reer miyigu isku daaweyn jireenoo maxay ahaayeen daawo dhereed baan jooga wax ka jirana ma lahan wax ka jira ma lahan daawo dhereed baan doonay baan ku idhi haa marka waanu fikirayo waxaan ku idhi ninkan odaygii weligii imuun soo wici jirine weligii allihii imuun soo wicine talow caawa adoo daawo dhereed ku maqan muxuu ku soo wacay wixii adu filinkaas waa dhammaaday anna waan is-ilowsiiyey hawsh waa dhammaaday mar kale haddana waxaan isku aragnay xafladdii kowda luuliyo gobolka banaadir islaantan asaga xogeynta way necbayd aad ba ii necbayd islaamaha ma aqaano waa yeelka waxay ku naceene caaqna ma ihiyo dadka xitaa waalidka u daran maya anigu ma garanayo islaantii way necbayd masrixi way habeenkaa laftirkeeda leef maana soo geline way ii dambaysiiyeen isagii laftirkiisa heese wadniinuu qaaday heesaha saas loo tuurayo baaberi baa joogay balaayo dhan baa joogtay anoo shibaan soo baxay inta ka dambaysa waan is aragnay haddana gobolkaan iska hornin allah naxariistee yidhiisow maalinuu ila ballabay baan haddana meesha iska hornim anoo xafiiska yidhiisow allah naxariistee sii gelaya wareedha waxaad qabanaysaa wadman shayga dhaqaaqa hal madar xaggaa istaaga de xaggaa istaaga walaal xaggaa istaaga marka niman baa isdhaafinayeen marka sheekadu waa sheeko xasaasiya laakiin dhibka jira waxay tahay anigu waan cabsanaya runta ma sheegi karo anuu xamar baan joogaa miskiin baan ahay Facebook live baan soo galaa waxaan hadda ruuxa sidaan wax ogahay wax ma sheegi karayo wallaahi ma sheegi karayo laakiin ninaan saaxiibo nahay baa xalay ila soo hadlay markaan arrintaa anoo aad maaragtay u sheer garaynayo arkay markaasuu yidhi ninka hebel ah xaafad baanu isla deganayn guri buu ila deganaa markii dambena anoo safar ku maqan baan ka shakiyey waxaan ku yidhi iga guur dhikaar brimer bangi oon lahaa oo bangigan uu igala guuray buuri sheeka keentahay maalin kalena wuxuu igu yidhi warniyahow yaa muusigada kuu tuma markaasaa waxaan ku idhi muusigada waxaa ii tuma nin la yidhahda xayawaan baa ii tuma muusigada erayadana kabajaan baa ii sameeya hadda wallaahi been maaha inta badan anugu markaan qof aanan si daacada ugu warramayn hal geemoo ilaahay maaragtay dembigayga ha dhaafay hal geemo waxaan u dhiibaa beena yama nafsiya laakiin waxaan dhihi lahaa tiyaatarka isxilqaan lagu dhisay oo aniga laftirkaygu isxilqaankaan wax ku darsaday ilma adeerayaalow nin baa isku qarxin doonee maxaa la dhahay hala baaro maxaa la dhahay hoballada waa beriyo madaxdooda aad ha loo baaro waa dhibaatay leeyihin muhaajiriin badan baa meesha ku jirta
dad muhaajiriina ayaa meesha ku jira muhaajiriin baa meesha ku jirta ma fahamteen anigu marka anoo daas qarana xilli horaan maartay haddaan maartay inaan marka meesha dadkaasaa ku jira waxaa kaloo idiin sheegayaa dadka lifekayga qaadan doona pagekayga copyright baa ku xidhan channelkiinaad weyn doontaan haddaad videoga qaadataan ma qaadan kartaan haddaan idiin sheegaya videogan kadaata waa youtube pagekaygan waa regisgaraysan yahay xayisiis baa ku xidhan lacag baa ku xidhan laakiin waa page ay shirkadda Facebook aqoonsan tahay marka laakiin shirkadda Facebook laftirkeedu waxyaabo aan sheegi karin oo xajjo erayga hadda magaca ciwaanka ku qoran oo kale inaan aad ugu soo celceliyo shirkaddu way iga mamnuucaysaa ma garanaysaa oo inaan ciwaankayga ku waayaa suurtagala marka anigu yaan u digayaa waxaan u digayaa arrintan tadaata waa arrin xasaasi laakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi soo dhaar ilaahay ma filinkan wuu soo daahay anigu filinkan mar horaan sugayeyba waxaan sugayay 2016kii 18kii kooxdaydii dhalinyarada ahayd oo dhaantada ahayd uma sheegi jirin markaan xaflad dawladda u soconno inaan berri toole xaflad u soconno madaxweynaha heesayna uma sheegi jirin waan ka qarin jiray sababtu waxaad kumaana kalsoonay waan ka baqi jiray ayaan ka baqi jiray markay qaarkood weydiiyaan cabdi waxa xagee xafladda ay ka jirtaa waxaan ku idhahdaa number 4 bay ka jirtaa number 4 laami bartanka jidka weliga run maana sheegin waan been baan u sheegi jiray arrimahaas marka laga hadlayo oo marka laga hadlayana maba geli jirinba yani security issue dad minisnimba hadda kood waxa la weydiiyay reer burcaa ma mise abgaal buu ahaa waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi waxaad ka warantaa nimankaas yararkaa ka warran baa lagu yidhi xaaladooda ka warran markaas wuxuu yidhi weligay allah nin la fadhiya maana xaman weligay ma fahmaysaa weligay ma xaman marka filinku markuu halkaas marayo oo uu soo daaho waqti badanna anaan sugayo filinkan ilaan lama aaminayo moogta cabdidhaanta waa nin iska qoslay oo iska faraxsan lama kala qaayaqaano runtiisa iyo beentiisa hadduu wax sheegana lama aaminayo laakiin wallaahi muhaajiriin badan oo fanaaniinah ayaa jooga aniga kooxdaydii dhaantada ilaahay anigoo shartooda anagoo kala nabad gallay wax ceebiina igaga imanin baan kala diray qaarna dawladda iga qaado askar bay qorteen kooxdaydii dhaantada kulli anoo nugayn baa askar la askareeyey waa laga burburiyey marka waa saasay markay kooxdayda ku burbureen shartooda iyo khayrkooda ilaahay waa kala diray marka hadda kooxo badan baa la aasaasay hobolada waa beri laftirkeeda baranjiyo badan baa hadda loo sameeyey oo baranjiga hobolada waa beriga oo saxda aan ahayn baranji kala jira baranjiyadaas la sameeyey anigoo ilaalinaya maartay shuruucda aniga ii degsan hadda waxba ma sheegayo laakiin marka xukun dhaco oo ninkii la shuute uu filinkiisii saa soo daayo kii maxkamadda ilaahu aniga badbaado inay xidhan nimanka markaasaan anigana waxaan hayay soo daynaya ninba hadda koor waxa la weydiiyey ninba hadda koor waxa la weydiiyey gabadh buu ureeyey sheekadan oo kale aan sheegaya gabadh buu ureeyey gabadhii markuu ureeyey sheekadan hadda yaa qosaysa يعني ما دام wax kala aan rabin inaan sheego laakiin ma aha maan idinku soo qaadanaya mugta gabadhii markuu ureeyey waxa dhacday gabadhii baa leena ninka reerka degan ku ureeyey waa qolama ma taqaana ma garanayo tiri laakiin haddii saf la soo galiyo waan garanayaa wajigiisa waa la sameeyey saf la soo galiyay reerkii subaxii baa reerka oo dhan ragii wixii nin joogo qaan gaaray baa saf la soo galiyay safkii markii la soo galiyay baa xariifkii uu sagaa moogta ilaa gabadhaas aa ureeyey moogta wuxuu sameeyey cimaamad buu soo qaatay iyo khamiis buu soo gashay safkii buu soo galay wuxuu iska dhigay ninka safka u dambeeyay ilaa gabadhaas aa u tagay xalay isaga u tagay moogta markuu u tagay nimankii nin baa marka loo xil saaray oo leeyahay dadkan taataabo yani kan hebel naakii ku wareey kan miya waa may ayadana waa daba socotaa bas waayte ninkii kan u taaftay
kan ma kuurey ma yatiri kan ma kuurey ma yatiri xariifkii markii loo soo dhow yahay oo hal qof loo soo jiro wuxuu yiri war la ciibeedan ragga oo dhan soo dhaaftay tolow ma sheekha u socota ragga oo dhan soo dhaaftay tolow ma sheekha u socota marka bahashu marka waa halkaas marka waxaan waa wax iska caadi ah xamar caadi ka reer dhaxal meesha la taaganta kowde marka xaalku waa sidaas arintu halkaas bay maraysaa kama hor dhacayo laakiin wax walboona oo jira waan idin la wadaagi doonaa dib aan idinka soo sheegi doonaa waxaan sugi doonaa wixii xukunkaas iyo arrimahaas ka soo baxa iyo maxkamadda ayaan sugi doonaa laakiin afeef cidaha sayo anigu midkiina lama jiro hadda idin sheegaya hala nabadgeliyo hala nabadgeliyo labada dhinaca iga qaleeya ma fahamteen saana iga daacada aniga labadiinaba iga qaleeya iga wareejiya hawshiina wata laakiin aniga halaynimada aniga maaragtay iska geydaaya ma fahmaysaan ku xiran yaad ma fahamteen marka macallinka laftirkiisa balaayo dhigay wallahi kowdhaha sheekadu waa sidaas waad iska qoslaysaan balaaya qosol laan maqli jir balaaya qosol ya balaaya qosol xamar baa la yidhahdaa smoke baa la yidhahdaa way magacyo badan tahay way dadkeedu way magacyo badan yihiin ardaydii gacan inaad helo wallahi ciyaar baad ku jirtaa maxay tahay soo cabi inkaari kugu dhacday walaalahay anigu weligay ma cabin weligay xitaa kafee ma cabin iska badaa wax kale noloshayda xitaa kafee ma cabin shaah aanan geela baan caba haddii janna la igu geynaya haddii laygu cadaabiba marka in adeer ha ii gefin anu ma cabo nin cabana sharaftaas iyo quruxdaas kama muuqanayso marka walaal ha ii gefin gabadh baa tahay kuma caynaya marka waan idin salaamaya habeen wanaagsan